بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الموضوع كانوا كلام لا وحكوا في عنان لهيد عدي تخصصات كاله هنا كورنته siiba dad iyagu caafimaadka ka shaqeeya, laakiin bal wixii alla ka qadaro wixii ay dadkaasi qoreen ayaynu isku dayi doonaa inaynu wax ka soo naqlino ama wax ka tilmaamno. bini aadamku waxyaabaha ugu dhibta badan la uu isticmaalo waxaa ka mid ah wax jirkiisu diidayo, caafimaadkiisu aan ogolayn, oo isku qasbo ilaa iyo marka dambe uu u baahdo oo noqdo shay ka mid ah baahidiisa. marka laga warramayo shiishadda ama naarjiisha, waagii horaa qumbaha geedkiisa halka biyaa loogu shuba ahaan jiray, dabeetana tii asianka ee ay indiya iyo dhankaasi isticmaali jireen juusul hindiga qumbaha lagu samayn jiray, saa daraaddeed baa naarjiil loo bixiyey. intaynan xukumka sharciga iyo adraarta mujtamaca iyo ka warramin muxuy tahay aan isweydiina marka hore. waayo waxay dhahdaan alxukmu cala shayi farcun can tasawuri. shay inaad xukunto oo tidhaahdo waa xun yahay, waa wanaagsan yahay, waa xaaraan, waa xalaal, waxuu farac ka yahay waxa ka horeeya inaad shayga garato marka hore muxuu yahay isagu. wakhtigaynu hadda joogno dunida waxyaabahaasi la cabo daraasaad cilmiyo aad u tiro badan baa lagu sameeyey oo mutawafir ah, meel kasta yaalla. jaamacaad sameeyeen, researchers sameeyeen, dad badani sameeyeen, laakiin waxaad moodaa inaanay dadka weli gaadhin cilmigaas sababo badanba daraaddood. nimanka lacagta ka faa'iida oo dacaayaad dhinac wada oo iyagu tv-ga mid sigaar cabbaya iyo mid wax burburinayo faras fuushan oo caafimaad qabo ordayo kuu soo saaraya, iyo dadkeenna dunida saddexaad oo jahliguna ku badan yahay, dowladuhuna aanay danaynin in badan waxyaabaha precautionska caafimaadka ummadda loo sameeyo. waayadan dambe yurub iyo north americaba aad baa loola dagaalamay, dowladihii jooga ula dagaalameen. haddaba muxuu ku kala gedisan yahay sigaarku iyo shiishadda iyo wixii la mid? waxay ka kooban yihiin waa 3 shay. maalan sigaarku waa tubaakada nooceeda, nooca ay tahay, iyo lafaafadan yara ku duuban, iyo filtrasationka nooca buushka lagu xidho. markaynu eegno nooca tubaakadu waa kala noocyo. qaar waxay dhahdaan waa fire cured, markii processanka markii la soo hagaajinayay sida iyagu sheegayaan, qaar dab baa lagu soo hagaajiyaa oo inta badan waa tan afka la gashadee lagu canka la geliyo, tan sanka la geliyo, tan beebka lagu rido. inahaasi waxay yidhaahdaan waa fire cured, waa kuwa dabka lagu farsameeyey. waa Tennessee iyo Kentucky iyo Virginia iyo meelahaasaa laga bayraa Maraykanka. qayb kale waa yidhaahdaan Turkish tobacco bay u bixiyeen, laakiin Turkida, Greega, Bulgarianka, Macedonia, Yurubta halkaasiyaa soo saarta waa sun cured bay iyada yidhaahdaan. iyadana cadceedda lagu farsameeyey, waana highly aromatic. waxyaabahan waxduudgeeneeyana aad bay ugu jiraan, iyadu especially beebkay u badantao lagu cabbaa. kuwan sigaarada iyo waxaan lagu cabbaana waxay dhahdaan waa perlite tobacco, waa air cured, waa hawa lagu farsameeyey. idan waa qaar cadceed loo dhigay, qaar hawo lagu furay,
qaar dab lagu furay sida loo process gareeyaaba kala gedisan saa daraaddeed bay u kala gagadisan tahay urteeda iyo dhadhankeeda iyo waxaasi waxay dhahdaan inta la og yahay 4,000 oo maado wax ka badan oo chemical compounds saba ku jira marka yara sigaara habada yara sigaara 4,000 oo maado chemical compounds wax ka badan xusuusta dambe qaarkood baa ilaa 7,000 gaarsiinaya waxa ka mid ah bay yiraahdeen kontaneeyo mawaad ah oo la isku raacsiisan yahay inay yihiin waxyaabaha kansarka keena carcinogenic ay yiraahdaan waa mawaad kansar causing ah la isku raacsan yahay inay kansarka keento waxa kale ku jira bay yiraahdeen ilaa 400 oo maado tii hore 4 ku baahay Soomaha ilaa 400 oo maado toxic ah suma ah habada yare sigaarka ilaa 400 oo maado suma ah ba ku jira waxa uu caansan 3 kuwa kalena waynu sheegi waxa uu caansan oo inta badan maqashaan nicotine maada la yiraahdo nicotine John Nicot waa safiirkii Faransiiska ee u doodi jiray sigaarku inuu caafimaadka u fiican yahay berigaan la isbaranin dabeetana suntii ay ka heleen koowaad bay isaga magaciisa ka dhigeen ay nicotine u bixiyeen nicotine waa maadada ku jirta idmaanka keenta inuu qofku walfo oo ka go'i waayo waxa kale oo u baahdo oo u xaraaradooda waa maadada xaraarada keenta waxa kale oo ku jira taarku waa daamurka maxaa tiraahdaa laami baa ku jira waxa kale oo ku jira carbon monoxide ku waqiiqa gaadhigu soo daayay intaan oxygen-ka la kulmin waa sunsunaha ka mid ah kuwa dib baa ka sharxi doona waxa ku jira bay yiraahdaan maadadan DDT-da la yiraahdo DDT-da berigi hore beeraha xayawaanka galeyn jiray imka waa mamnuuc dunida in lagu beerana xataa lagu shubo suntaas waa ku jirta waxa ku jira cadmiumku baaterigan gaadhiga wax ka mid ah waxa ku jira weeyaan waa maada thaqiila waa maadooyinka inta badan kansarka sababka ku dhaca iyo kansarka borostatada ku dhaca keena buu ka mid yahay waxa ku jira benzene waa industrial solvent waa bahal oilka laga soo saaro oo inta badan waxay keentaa bayda xanuunadan leukemia-da la yiraahdo kansarka dhiigga ku dhaca waxa ku jira butadiin oo loo isticmaalo rabadhka samayntiisa waxa ku jira polycyclic yani nooc badan oo kaarboonka ka mid ah oo DNA-da bini'aadamka hidasidihiisa burburiya waxa ku jira bay yiraahdeen polonium 210 waa maada radioactive ka sama taqaanin waxyaabaha khatarta ee radioactive ka dadka dila waa maada ka mid ah waxa ku jira maadada culus chromiumku waa maado marka hore adaygeeda daraadeed dayga sama taqaanin ninkii tumaala ma idinku jiraan farsamo yaqaano birta marka la qorayo afka yar hore adaga lagu qoro late machine-ka iyo wixii lamida waxa yare wax qora waa bir yar adag waa kaasi wax laga sameeyo waa chromium oo sida ka loo manufactureeya inta badan loo isticmaala waxa ku jira arsenic poison-ka la yiraahdo oo dhirta lagaga ilaaliya xarka iyo waxaas inuu galo waxa kale oo lagu sameeyaa jiirka lagu laayaa waxa ku jira formaldehyde waa maado sababta inta badan kansarkan cunaha ku dhaca meydadkan la ilaalinayo ee muusimada iyo meelaha la dhigana waa waxa la mariyo xasharaadka iyo waxa lagaga ilaaliyo waxa kale oo loo isticmaalaa painting-ka rinjiga marka la sameynayana waa lagu isticmaalaa
waxa ku jira maadada la yiraahdo nickel nickelku inta badan lung infectionska waa waxa keena birta la mariya oo daxalka ka ilaalisa birta daxalka laga ilaaliya nickelka waxa ku jira berylliumku waa mawaad khatarta ah nuclear reactorska baalada soo saara nuclear weebanka iyo waxa la mid ah waxa lagu daro weeyaan waxa ku jira ethyl oxide waa maado qalabka dhakhaatiirta maadooyinka lagu nadiifiyay ka mid tahay waxa ka mid ah maadooyinka ku jira butangasku baashan ay sigaarka ku cabaan liquidka ku jira weeyaan dabkan baashan gaaskan dabka laga shidayo liquidka yara ku jira weeyaan waxa ku jirta ammoniyadu waa detergent musqulaha lagu maydho kaadida baasha lagu tirtiro weeyaan kaadida casaankeeda baabiisa ammonia baa la yiraahdaa waxa ku jira tolinku isna waa solvent waa mudhiib waxyaabahan qolada industry-gu maadooyinka aan dhalaalin lagu dhalaaliyo waxa ku jira methanol kama taqaanin dayax gamceedada cirka loo dirayo shidaalka lagu shubo weeyaan gamceedka cirka loo diro shidaalka lagu shubo ayaa methanol la yiraahdaa waxa ku jira naphthalene wa qatil al-'ath sariiraha ama jirka bini'aadamku markuu dhinto xayawaan cunaa jira oo dadkan allergic leh la yiraahdo sariirahooda waa in laga ilaaliyaa waa sunta lagu laayo baasha xayawaanka yar sunta lagu laayo weeyaan waxa ku jira cyanide hydrogen غرف الاعدامka meelaha dadka lagu dilayo ama xoolaha lagu dilayo waa hawada lagu furo oo sunno dadka laysa waxa ku jira zarniikhu uraanjada cad sunteeda weeyaan waana waxyaabaha wadna xanuunka keenay ka mid tahay waxa ku jira acetonku dumarku bahashan ay ismariyaan xamuurada waxa lagu maydho waxa tirahdaan xamuuradaha iyo waxa gooya taas acetonka ay ka sabaysantay kaasa ku jira Soomaalidu tandar iyo waxba iska yiraahdaan waa bahashaasi waxay ka samaysantaa acetona waxa ku jira waxa mawaadan sheegaya yaha sheegay qaybaha ugu badan waxaan ka soo naqliyay cancer research-ka uu leeyahay UK wadanka Ingiriis qaybta caafimaadka kansarka baadha markay ka waramayaan mawaadda sigaarka ku jirta iyo waxyaabaha poison keena any book ka waramaya ama waxyaabaha kansarka ka waramo dhawe marka ay ka waramayaan waxay tilmaamaan mawaadda sigaar ku jirta noociye waa maadda macruufa maanta waxaan leenahay ilaa 400 oo maado oo sun ah oo la garanayo sunnimadooda ku jirta waxa ka mid ah mawaadkaasi aynu sheegayno maadada ugu caansan ee nikotinku waa aqaar mukhadara nooc min maandooriyo kala noqon kara waana highly addictive bay yiraahdaan waa waxyaabaha marka la cababa markiiba qofka jirkiisu uu la qabsaday oo u baahdo khamriga isaga ka baahi badan yani sigaar yacabku baahida uu sigaarka u hayaba waxay ka badan tahay khamri yacabku baahida uu khamriga u hayo addiction-ka markay noqoto waxa addiction xun sigaarka addiction xun waxay yiraahdaan small dosage hadaad ka qaadato waa stimulant oo waxyaabahan aad moodo inay qofka kiciyaan qofka xabada koowaad markuu ku dhufto waxaad moodaysaa inuu fariid smooday inuu toosay oo kale hurdo inuu ka kacay dosage-ku hadduu sii bato waa depressant waa waxyaabaha qofka dumiya ee neerfaha iyo maskaxda xidhiidhkooda iyo unugyada xidhiidhkooda kala dhex gooya signalska maskaxdu soo diraysu joojiya waa depressant markaa waa lethal poison bay yiraahdaan oo hadduu bato wadnaana waxbuu yeelaa xididada dhiiggana waxbuu yeelaa oo xididadan hoose cagta ku yaala dhakhaatiirtu ma qasho ilaa qofku sigaarka iska daaya mooyaane waayo way adkaadaan marka waxay yidhahdaan bisharta haddaad rabta in lagaa qalo waa inaad sigaarka joojisaa wuxuu khalkhal geliyaa bay yidhahdaan hormoonnada qofka bini'aadamka ah muudka qofka bini'aadamka ah
si kale waa mubiid lilxasharaat haddii nikotiin saafiya la soo qaado waxa lagu buufin karaa cayayaanka u laynaya sidiisuu cayayaanka u laaya wuxuu kaloo layn karaa dhirta yaryare beerta ka hoos baxdana waa lagaga dilaa marka waa pesticide ama xayawaanka wax lagu laaya ama dhirta yaryar lagaga jiro weeyaan sigaarka nikotiinka ku jira bay yidhaahdeen 40 ilaa 60 garaam 40 ilaa 60 miligram haddii wariidka lagaaga mudo halkan haddii lagaaga mudo toos baad u dhimanaysaa laakiin nasiib wanaag qofku markuu cabayo mar qura ma wada qaato dhiigu mar qura ma wada nuugayo quantity-ga ku jiraana waa 1 to 2 wuu yariyey sijaarada xabadda sigaarka qura ilaa 3 miligram ba ku jiro nikotiinkaasiya waxa sigaarka ku jira maadada ah taarka daamurka ama laamiga hata lagu sameeyay madow ayaa ku jirta si kale haddaan u tilmaamo beeb weligaa ma kala furto beeb la maydhaya maaragta beebka daamur madow baa laga maydhaa beebkan dheeray sigaarku cabaan markuu cabo hadhow muddo markuu joogaba waa la safeeyaa waa la kala furaa beebka marka la furo gudihiisa daamur baa laga jaraa daamur madow caadiya dadka sigaarka caba markay qalaan youtube-ka gala ama google-ka sawiradiisa gala waxaad ka helaysaan sawirrad bini aadam oo dhakhtar intuu qof qalay sigaariya caba wadnihi la soo saaray sambabkii qofka oo inta midida sidaa lagu yidhaahdo maalay madow saa looga dareerinayo uu leeyahay waxa weeyaan waa daamurkii uu cabay sambabkii qofka bini aadamkii caadiga ahaa haddaad sambabka qofka caadiga iyo sambabka qofka sigaariya cabka inta la jeexaad si dhinac dhigto midna waa digsiga dabadiisoo kale midna waa waxaas qofka caadiga waa casaan waa red ka sigaariya cabkuna wuxuu u egayay digsiga dabadiisoo kale waayo daamur baa ku yaalla daamurka madow daamurkani shiishada marka la cabayo biyuhu way casaadaan waa waxaan biyaha caseeya amase sigaarka markaad soo iibsato buushku waa caddaan markaad burburisana wuu casaadaa waxaan casaynayaa waa daamurka idan daamur baa ku jira daamurkaasi waa maadda lazija waa maaddo dhegdhega dee daamurka saa aragteen saa daraaddeed waa maaddo culus oo sambabka fuusha oo xuwaysalaadka waxyaabahan hawada nuugo oo dhan xidha waxaa kaloo ku jira carbon monoxide baynu nidhi carbon monoxide-ku waa qiiq dee baashan la gubayaba qiiqa ka baxaya way la qiiqa dibad u nuugaysaaye qiiqa sigaarkoo dhan maahe waa qayb ka mid ah waraaqdan saree gubanaysu ka mid yahay kan shiishada cabaya dhuxusha gubanayso qiiqay soo saaraysu ka mid yahay qiiqaasi markuu dabadda u baxo oxygen-ka la kulmayo carbon dioxide buu noqdaa kani waa inta aanu oxygen-ka la kulmin carbon monoxide baa la yidhahaa waa poison waa sun caadiya jidhka hadduu ku bato dhiiggaagu shaqo tiraa oo halkii dhiiggu hemoglobintu ay oxygen-ta qaadi lahayd ayay carbon monoxide-kan qaadaa dabeetana unugyadaada jidhku waxay waayayaan oxygen ku filan markaa waad dhiman kartaa ma aragteen weli qof guriga intuu dhuxul ku shitay daaqadaha xidhay oo sakaraaday markaa qofka biniaadamka way sakaraadaan waanay dhintaan haddii uu xidho dacmayd waxa weeyaan carbon monoxide-kii wuu isku xidhay oo guriga ku jirta saa daraaddeed wuu samoobayaa waa uu dhimanayaa haddii uu oxygen kale waayo kuwaasi waa kuwa ku sii jira ilaa 599 ingredients 599 maado ayay dawladda Mareykan ogashay in lagu sii daro sigaarka additiveska oo waxaan dhadhanka urta qabowga kulaylka waxa uu sameynaya kale waa mawaad dheeraad ah oo lagu daro lagu buufiyo tusaale ahaan mawaadda lagu daro qaar dhadhan baa loogu yeelaa مثلا كان ينوري روكت فيول ده حاجه معيدك دبكيسا سليديسا اما
bitroolku ku kaco maxaa loogu daray waxa loogu daray bay leeyihiin nikotiinka inuu viber ka dhigo oo waa maxay nikotiinku inuu noqdo hawo la qaadan karo sadaradeed dab kulul buu u baahan yahay sigaarka afkiisa hore si dabkiisu temperature-ku uu kaco mararka qaarkood 950 degree buu gaaray sigaarka afkiisa temperature-kiisu si dabkaasi markiiba uu gubi karo oo nikotiinku ay vapor la nuugi karo u noqoto ayaa loogu buufiyaa maxay shidaalka dayaxgacmeedada lagu diro waxay yidhaahdaan ammooniyada maxaa loogu daraa tan aynu nidhi musqulaha iyo kaadida iyo waxan baa lagu maydhaa oo ay waxaa loogu daraa bay leeyihin nikotiinkaasi si uu absorbable sambabku si uu nuugi karo sambabku si uu si hawl yar ugu nuugo oo ay jirka u gasho baa loogu daraa bay yidhaahdaan hadalya dhammaan waxay yidhaahdaan meelaha sigaarka lagu cabo cigarette pollutionka bini'aadamku uu sameeyo 10,000 times ayuu ka pollution badan yahay bay yidhaaheen jidka ugu weyn wakhtiga rush hour-ka ee gawaadhidu marayso sigaarka ay dadku cabbaan idan sigaarka waxaa ku jira maadooyin musartan ah maadooyin kansarka sameeya ilaa 14 nooc oo kansara laga qaadaabay isku rumaysan yihiin hadda waxaa ku jira maadooyin sun ah oo lagu sumoobo waxaa ku jira maadooyin muxtariqa gubta sida fuelskaas aan sheegayno ama butane-gaaska iyo waxa la mid ah waxaa ku jira maadooyin mukharadku waa biraha adaga ay lahayn waxbaa lagu qoraayoo kale maadooyin abaa ku jira dunida dadka dhintabay qaybta caafimaadka United Nations 2004 waxay dhahdeen dunida 58 milyan dadaba sanadkii dhinta 5.4 ka mid ah dadkaasi sigaar baa laayay that means 5 milyan iyo 400 kun oo qof oo bini aadam oo sanad walba sigaar ku dila qiyaas ولذلك من نختاري يا هدايو وحلي urur dhakhaatiir oo Mareykanku ay leeyihiin shir loo qabtay qoladan bararada kansarka wixii la mid ah ayuu hadda wuxuu yiri WMD-gu waa weapons of mass destruction bayda hubka wax gumaada ugu khatarsan ee dunida yaalla sigaar buu leeyahay inta ayna leedin buu yiri nuclear weaponka hal la ilaaliyo kaasi 5 milyan sanadkii ma dila buu yiri dunida oo dhan hadii la isku daro 5 milyan oo qof ma nuclear weapon baa dila xabadan yar yar la isku garaacay waxaan dagaal dunida dhaco dhamaan dilin ee maxaa dila sigaar baa dila waxay yiraahdaan maalintii dunidu 10 bilyan oo xabbo sigaar ay cabtaa daqiiqad kasta bay yiraahdaan دقيقة واحدة وحلا عبا وحلا قرر إنه تربضن 8 مليون سيجارة every minute العبا every minute دونيدا 8 مليون سيجارة عبتها وما لها دقالها وبدن كسبعية شركات كمريكان هي وحيلها المالي ولذلك أي دولتها حدين كرواية دعاياتك iyo waxa loo sameeyay waxa laga yaabaa in astiraadaan war waxna hadii lagu ogeeyay maxaa loo joojin waayay aan qisaydin sheego wadanadii shuuciyada ka baxay wadan kamid ah ayaa wuxuu damcay inuu sigaarka yareeyo dibatana calculationski ay sameeyeen dadku dilay caafimaadka dadkii ku waayay dawladda waxa caafimaad kaga baxday lacag waxa khasaar ayaa la xisaabiyay deetana waxay dhahdeen sigaarku khasaaro inuu hayaa shirkadaha u doodaya yimi xisaab kale keenana waxay dhahdeen dadku khasaara ku hayaaye dawladdu faa'iido ku qabtaa bay dhahdeen markaasay dawladdu say faa'iido ku qabtaa ilaan waxaba inta wasaaradda caafimaadka ay siiyaan qudaba khatar ku haysa dawladda waxay dhahdeen dhanka dawladda caafimaadka qabtaa waa laba qaybood kow cashuur badan ma ka qaadataa roodi ka soo gasha laba bay dhahdeen waxay idinka yaraysaa falada u fiirsan nimankan iskaarka bilaysa u fikireen waxay idinka yaraysaa da'da pensioniska
yani qofku 60 jir buu pension ku dhintay hadduu caafimaad qabo bay leeyihiin dawladdu dhowr iyo 10 sannadood bay lacag siinaysaa hadduu sigaariyo cab yahay bay leeyihiin 2-3 sano idinku dhaafaya marka dawladda waxa uu soo haraya bay leeyihiin budgetkii dhowr iyo 10 sannadood qofka la siin lahaa saa daraaddeed dawladdu faa'iiday ku qabtaa bay leeyihiin dadkaan aan wax soo saarka lahayn inay ka dhintaan dadkaan wax soo saarka lahayn inay dhintaan ayay waxay xisaabinayaan in dawladdu faa'iido ku qabto yani rag xadka maraya bini aadam in la laayo in laga faa'iidayo weeyaan nimanka sigaarka soo saaraya waxay yidhaahdaan dunida 1 bilyan 220 milyan oo qof baa sigaar cabba sigaar cabka dunida jooga waxaana laga yaabaa bay leeyihiin 2025ka inuu ilaa 1.6 1 bilyan iyo 600 milyan inay gaari doonaan dabadan sigaarka waxay ka samaysantahay alyaaf balastiga plastic wax laga sameeyay bay ka samaysantahay oo ay yidhaahdaan acetate cellulose waxay yidhaahdaan marka ciidda lagu tuuro environmentka siday u kharibayso 18 bilood ilaa 10 sannadood bay qaadataa dabada sigaarku inay baaba'do bay leeyihiin yani environment problem bay ku haysaa bay leeyihiin dunida oo ilaa 10 sannadood qaadanaya inay baabi'i karto waxa ay sheegaan shantii qof ee dhalinyaro ah muraahiqiinaba mid baa sigaariyo caba dunida bay yidhaahdaan shantii dhalinyaro kastee dunida jooga oo da'doodu u dhaxaysa bay dhaaheen 13 jir ilaa 15 jir mid baa sigaariyo caba bay ku sheegaan qofka sigaarka in doora cabayay bay yidhaahdaan inta badan geeri kara ma leh oo aan ahayn sigaar waxa laga yaabaa inaad tidhahdaan war wax sigaar u dhintay maanaan aragay war waxaan laydin leeyahay kaliya xanuun buu dhintay wadna xanuun buu dhintay beer xanuun buu dhintay asalka beer xanuunka sigaarka ah asalka sabab xanuunkan baa sigaarka ah waxay leeyihiin xanuunadan aynu haynee la leeyahay qofka u dhimanaya calool xanuun buu dhintay wadna xanuun buu dhintay beer xanuun buu dhintay ayaa kooskiisu uu yahay maxay suntan sigaarka therefore you ko odhanaynu intaasaanu cabayno waxba nama yeelin intaasaan cabaysay maalintaad gooday isagu maad u gooday ayay u badan tahay xanuunada ku dilay mostly waxa sabab u ah bay leeyihiin bahalka kan waxay yidhahdaan every 8 second ee kasta qaarna waxay yidhahdaan 6.5 second kasta dunida qof baa u dhinta sigaar 8 second oo kasta dunida qof baa sigaar u dhinta qarniga kan bay leeyihiin waxaa la rajaynayaa dadka sigaarku laaya inuu 1 bilyan oo qof gaadho dadka sigaarku laynayo hadduu sigaarku kaa yahay shiishaddu miyay ka gedisan maxay sigaarka uga warramayay waxaan uga warramayay waa kii ugu badnaayay marka hore baxfiga lagu sameeyey researcheska lagu sameeyey laakiin shiishaddu iyo sigaarku maxay ku kala duwan yihiin su-aashu waa taa haddaba shiishadda iyo sigaarku maxay ku kala duwan yihiin kow sigaarka dabkaa lagu qabtaa wuu shidnaadaa shiishadda see dhuxulbaa lagu hayaa lagu shidaa laba sigaarku filter buu leeyahay ay ugu talagaleen inuu xuun reebi karo waxna filana ma reebo shiishaddana biyaa u filtara biyuhu way qaboojiyaane waxba kama reebaan qiiqa way qaboojiyaanuun qiiq khulul saanadu liqin ayuunbay kuu qaboojinayaan inaad liqdo maxay qiiq qabow laakiin waxba kama bedelaan chemicalska aynu ku warramayna meesha ku jira waxay yidhahdaan shiishaddu waxay dheer tahay kow suntii dhuxusha way dheertay oo adigu dhuxul qof nuugayaad waxay kaloo dheertay bay idhaahdeen falavariska waa maxay qolada shiishada cabtaa waxay dhahaan waa mucasal soo maaha mucasalku yacni nakahaad ayaa loo yeelaa ur baa loo yeelaa ama ur tufaax ur saytuun ur liimeed ur caynkana ayaa loo yeelaa markaa la samaynayo ay baasha soo samaynayaan madbacadda khadkeedaa lagu qasaa lagu khamiiriyaa dabeetana uraha lagu daraa madbacadda tan dhaladeeda khamrigoo laga yaaba intaasoo kitaab inay daabici lahayd kun kitaab lagu daabici karo ayaa lagu daraa bahasha marka la khamiirinayo
dabeetana nakahaadka lagu daraa dabeetana waa la soo khamiiriyey waxay dheertay bay yidhaahdaan tubaakada kale dawladaha daba jooga bay leeyihiin oo wasaaraadtu sixabaa leh ha la yareeyo waxaan ha laga dhimo ha la jeegarayo ha la soo saaro laakiin tan bay yidhahdaan cidiba ma daba joogto waa free qolada wax qastaa un say u soo qasqasaan cid dambe oo ka baadhaa idan waxay yidhaahdaan marka loo eego tubaakada caadiga inay ka sun badan tahay mooyaane waxba kama sun yara haddaba waxay yidhahdaan carbon monoxide-ka uu qofka shiishadda cabbaa 8 jeer wuxuu ka badan yahay normalka waxay ku tilmaamaan weliba shiishadda cabbisteedu waxay dheertahay bay yidhaahdaan bahashan la wadaagayo oo xanuunada mucadiga infectious diseaseska la kala qaado sida oral herbiska oo kale xanuunadan dibnaha iyo afka ku dhacaya ciridada tiibayd oo kale maxaa la yidhaahdaa hepatitis oo kale xanuunadan beerka ku dhaco kale la kala qaado influenza oo kale dee bahal nin kale afka geliyadadna markaaga afka gelinaysa ka sigaarku isagunba kiisa afka geliya inta badan laakiin tan dhuuntan yar baa la wareejinayaa iyo dadka oo dhan baa afka soo wada gelinaya marka mid tiibay qaba iyo mid kansar qaba iyo mid balaayo kaa qababa tan yar afkaa la soo wada geliyo iyadu waxaana waa dheertay baa la yidhaahdaa waxay isweydiinta leh markaa dukhaanulfaxamka ku jira 20% buu ka badan yahay bay leeyihiin qiiqanka kale daraasa waxaa samaysay New Zealand waxay yidhaahdeen tubaakadan bini aadamku cabbo daamurka ku jiraan xisaabinayna waxay yidhaahdeen sanad inta la cabbee tubaakaa waxaa ku jira 5 kilomitir iyo badh laamigii lagu samayn lahaa 5 kilomitir iyo badh laamigii u baahnayd in la saaro wuxuu ku jiraa bay leeyihiin sigaarka dadku cabbay waynu qaybsannay un 5 kilomitir iyo badh daamura unbaa dunida loo qaybiyey qofba in laabtiisa dhiga halkan buu ku wada jiraa markaa weeyaan daamurkii 5 kilomitir iyo badh samayn lahaa dadka laabahoodu ku jiraa bay leeyihiin daamurkoo quraba waxay yidhaahdaan ilaa 50 compound oo kansarka keeni karaa daamurkoo qura ku dhex jira bay yidhahdaan shiishaddu waxay yidhaahdaan halka shiishee la cabbay marra waaxida waxaa suurtagala bay dhahaan ilaa 70 midhoo sigaara inay u dhiganto macnaheedu waxa weeyaan adigu sigaarkaagii oo dhan baad mar qura wada cabtay kani wuxuu 3 casho cabbi lahaa ayaad adigu hal session hal fadhi ayaad sigaarkaagii oo dhan ku qaadatay waxay yidhahdaan jaamacatu virginia ee maraykanku leeyahay mu'tamar ay qabteen nin ka hadlayo Thomas Hasenberg la yidhaahdo waa majalla tibbi alwaqaa'i al-amrikiya bay ku soo qoreen ayaa wuxuu leeyahay 30 qof oo 18 jir ilaa 50 jir u jira baa tijaabo laga qaaday u fiirso 30 qof oo 18 ilaa 50 jir u dhaxeeya ayaa tijaabo loo sameeyey qaarna sigaar baa la cabsiiyey sigaar cabbaa la yidhi qaarna shiishad cabba baa la yidhi kani shiishad buu cabbayaa hal shiishadaa loo camiraya u dhammaysanayaa kanina sigaarkiisuu cabbayaa markay sigaarka cabbaan iyo shiishadda kadib ayaa blood test laga qaadayaa labadoodaba dhiig baa laga qaadaya kan shiishadda cabbayna dhiig baa laga qaadayaa kan sigaarka cabbayna dhiig baa laga qaadayaa waxaa la eegayaa oxideska ku jira carbon dioxide iyo carbon monoxide-ka jidhkiisa ku jira iyo nicotiinka jidhkii dhiiggiisa ku marayaa la xisaabinaya markaa natiijadii waxay noqotay kii xabadda sigaara cabbay 48 jeer buu ka batay kii cabbay halka badeecadda yani waa tajribo practical oo la samaynayo nin xabad badeecada ka laacay iyo mid xabad sigaara cabbay baa labadaba dhiig laga qaadayaa dabeetana waxaa la eegayaa baladhkooda waxa carbon monoxide ama dioxide ku jira iyo waxa ku jira maxay nicotin 48 jeer buu ka batay taa macnaheedu waxa weeyaan
halka mar ee bahalka la cabaa wuxuu u dhigmaa 48 jeer 48 xabbo sigaar oo aad cabtay qola kale daraaso 4 sanadood socoto Sacuudigu sameeyay oo ay ku sameeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa waxay soo saareen average nicotine ku jira inuu yahay 8/32 milligram nicotine inuu ku jiro halka xabada sigaara miduu ku jiro waxay kaloo yiraahdeen isku celcelin markaanu isku celcelinay halka shiishadii 70 midoo sigaara u dhigantaa isku celcelisahan يعني marka la qiimeynayo waxa jira qolo kale oo 100 xabbo ku qiimeysay waxa jira qolo kale oo ka badisay maxaa kala badnida keenay waxa keenaya nooca tubaakada qofkan wax cabayo sidoo uu cabayo mid baa yar cababo soo afuufo midna wadnuhu isku jaraya marka qofkan wax cabayo iyo sidoo uu cabayo iyo tubaakada iyo nooceeda ay tahay iyo meeshuu ku cabayo saytay waxa soo dhanba waxay keenayaan inay kala badbataan qaar 48 tilmaamayaan qaarna 70 tilmaamayaan qaarna 100 gaarsiinayaan laakiin daraasadani waa average 13 nooc oo kala jaada baanu sameeynay bay leeyihiin isku celcelintoodu waxay noqotay 70 xabbo oo sigaar ah caalam islaami yurub uu ka soo yaraanaya sigaarku way mamnuuceen yurub meel binaadam isugu yimi oo dhan lagu ma cabi karo sigaar gaariga kuma cabi kartid tareenka kuma cabi kartid dayuurada kuma cabi kartid xafiisyada kuma cabi kartid wadada umad ku cabi kartaa iyo qolkaaga hatta meesha khamriga lagu cabo sigaarku waa mamnuuc diskoteega khamriga lagu cabo Europe iyo North America iyo waa mamnuuc in sigaar lagu cabo meel dad isugu yimi waa mamnuuc hadda waxay wadaan sharci ah inay yiraahdaan guryahana kuma cabi kartid hadda waa gurigaaga deganeed in isna lagu rakabo qiiq lagu yiraahdo more sensitive la guriguna waa mamnuuc in lagu cabo hadda sharci ay wadwadaan xagaad ku cabi kartaa banaanka uun istaag markaad mid sigaar u baahato banaanka istaag halka sida loo cadaadiyay Yurub marka dadka waaweyn uu iska soo deynaya sigaarka inkastoo wali yar ku ay wadaan ciyaalku wali iskuulada dhigtay yar aad bay wali u cabaan caalam islaami waa cagsiga وسيب بدنيا سياركو سعوديغا ماشي دينتو سو دغتay jooga 15 bilyan oo xabo sigaar u cabaa 8 bilyan oo dollar bay sigaar siistaan inta ugu badan Mareykanka baa laga iibsadaa 8 bilyan hada milyan maaha waa 8,000 oo milyan ayay sanad kasta soo siistaan maxay sigaar Masar halku kan 15 bilyan ka cabo 8 bilyan oo sigaar ay cabtaa Turkigu dadka degan isku celcelis boqolkiiba 760 ma sigaar cabaa ta macnaheedu waxa weeyaan duwalka Carabeed inta Carabta 200 bilyan oo sigaar ay sanadkii cabaan bay yiraahdaan dawladda Carabeed si kale aan u dhigo waxay yiraahdaan wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda caafimaadka ee Carab oo dhamileed oo la isku daro waxay kharash ku bixiyaan waxa ka badan intay sigaarka ku cabaan qiyaas dad muslima oo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxay dhakhtar leeyihiin iyo wuxuu dhan soo socda wasaaradda caafimaad iyo wasaaradda waxbarasho waxay kharash dawladdu ku bixiso waxa u dhigma maxay waxa ka badan sigaarka la cabo hadda waxba la yaabin ingiriiska Soomaalidii joogtay midhar Yamaniyiin baa la socday 467 milyan oo pound bay qaad siisan jireen qaadkii dawladda Ingiriiska la jiray si kale hadaan u dhigno wadankan yar ee Somaliland la yiraahdo 524 milyan buu qaad siistay Itoobiya kaga iibsadaa sanadkii Itoobiya qaadku wuxuu yahay itemka saddexaad ay dibadba u dhoofiso dhaqaalaha ugu badan ay ka hesho 520 milyan oo dollar
ayaa sanadkii qaad laga siistaa ka Kenya laga iibsadaa kuma jiro iyo koonfur oo dhan waxay qaad cunaysay kama hadlaan waxaan ka hadlayaa qura qaadka lagu cuno maxay Soomaaliland kaliya qaadka lagu cuno ka waramayna idan sigaar iyo qaad iyo shiishad iyo wax la mid ah halkaas oo maraya waxaynu leenahay sanad kasta dunida 30 milyan oo sigaar iyo cabba ku soo biira bay yiraahdaan daraaso 15 sanadood qaadatay oo 4570 qof lagu sameeyay waxay leeyihiin sigaarka ka cabadaaya kuwan ag jooga cabistoodu waxay mucrad u yihiin diabetes ay qaadaan inay sokor macaan qaadaan macaan inuu ku dhaco waxay dhahaan dadka sigaarka cabba mooyaane kuwa la ag nool 600,000 oo qof baa u dhinta mid kale sigaarku cabbo kugu buufiyay dunida 600,000 oo qof ayaa u dhinta bay yiraahdaan second hand smoking sigaar labaadoo la cabay haddaba ayuha alxiba waxaasoo dhan waxaan u tilmaamayay inaan sheegno shiishadda iyo sigaarka iyo caafimaad ahaan dhibta ku jirta la tilmaamayo waxay dhahaan qofka caadiga ah dhiiggiisa marka laga qaado dhiiggiisa 3% baan caadi u shaqaynayn yacni aan oxygen-ta wadin ama ka sigaariya cabka fudud bay yidhaahdaan 20% baan dhiiggiisa shaqaynayn waayo monoxide-skii baa ku jira oo diidaya inay hemoglobintu qaado oxygen-ta mudakhinka kabiirkaana sigaariya cabka rasmigaana 3 dalool baan dhiiggaaga shaqaynaynin 30% oo dhiiggaaga ka mida bay leeyihiin si normal u shaqayn maayo tobakada shiishadan la buufinayo 10 miligram intay leegi waa milli maaha gram waa 10 miligram oo tubaqa oo 30 daqiiqo shiishada lagu cabaa 4 ilaa 5 midho sigaar u dhigma 10 miligram waxaynu tilmaamaynaa marka iyadu waxay leedahay shiishada mar la cabaa 100 midho sigaar u dhigantaa bay iyagu qoreen haddaba ayuha alxiba waxaanan ka warramayaa waa waxaan nafta aad ku qasbaysa aanay nafta ogolayn ee marka koowaad matagu ku qabanayo waayo nikotinku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha kiciya mataga saadaradeed qofku markuu baranayo aanu jirkiisu baranin hadduu 2-3 midho cabo intuu qofku facaamo matagaya waxaan leenahay waa poison waa sun aad arkayso su'aasha ay dadku ku weydiinayaan waxa weeye sigaarku ma xaaraan ba mise waa xalaal idinkan hadaba idin weydiinayay sigaarka iyo tubaakadu ma xalaal ba mise waa xaaraan marka caynka yihiin yani markuu sunta yahay ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wayuhillu lahum at-tayyibat wayuharrimu alayhim al-khaba'ith nabi muhammad alayhi salatu wassalam tayyibatku idin xalaalaynaya baa leeyahay al-yawma uhilla lakum at-tayyibat waxa wanaagsan baa idin xalaala waxa xumina ودين كحارنتين وينيا سيجاركم ميو حنيي بسوي ورقسي شيشة ميو حنتي بسوي ورقسنتي إنك أيدي ويدينيا إلهي وحقراك يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وارجع مين هلاك يسوق ردنا إذنكم لما يسوق يسننا ولا تقتلوا أنفسكم ورنفتي إن هدلنا بإلهي واحد أدان دلك مدنا ومرقنا إلى النفط سكشرته midna waxay yiraahdaan waa al-qatl al-bati wa dilka ayara inaad ayara u dhimatid duqaanku waa dilka bati nabiguna wuxuu tilmaamayaa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam ninka sun'aba ee naftiisa ku dila jahannamana iyada lagu sii dilaya إلهي القرآن كوحكوا لي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وارحولها صيديننا كو حولها صيدية شيطان بي ولا ليين باليدي شيطان الرب يجيبك قالوا
haddaan si kale u tilmaamo maxaa odhan lahaydeen ninkaas subaxii markuu soo kaco isagu intuu 300 shilin 400 shilin intuu duuduubo subaxii dabka ku rida ku yidhaha balwaddaa yar baan leeyahay lacagta gubaa maxaad odhan lahaydeen waa nin waalan baa odhan lahaydeen soo maaha ninka sigaarka cabbayaa ka waalan ama shiishadda cabbaya waayo kani lacagtoo quruu gubay dabeetana uu iska tegey kani lacagtiina wuu gubayaa caafimaadkiina wuu gubayaa environmentkii wuu xumaynayaa kani mufsid weeyaan arrinkoo dhan wuu fasahaadinayaa lacagtiina waa gubanaysaa laakiin ninkani intuu ku yidhi balwad yar baan leeyahay ayuunba waxoogaa dabka saaro uu iskaga tegey in lacag uunbaa ka gubataye lafiisa kale wuu u caafimaad qabaa idan ayuha alaxiba qiiqaas caafimaad ahaan dhib buu leeyo kansar buu keenaa kansarka afka ku dhaca kan ciridaha ku dhaca kan hunguriga ku dhaca kan sambabka ku dhaca 14 nooc kansar ay sheegaan haddaad netka gashaan bal youtube smoking intaad ku qorta gal dabeetana sawirrada kuu soo baxaa arag ee dhakhaatiirtu ka warramaysay caafimaad waxaan isleeyahay haddaad maalin qura daawataan dib umaydaan cabteen ama qofka daawada kuwaasi dib uma cabbeen wuxuu leeyahay adraar nafsiya oo waa maxay iraadadu kaa qaadaya addoon baad u noqonaysaa ilan waa lacagta aad umadlintaba ordaysaa adoo og inuu ku dhibayee cabiidu shahwaat baad soo baxaysaa idmaamku waa dhagshanka waxaasu keena wuxuu leeyahay mafaasid ijtimaaciya oo majaalistu xumaynaya oo environmentku xumaynaya oo maxaa la yidhaahdaa gaadhi sigaar lagu cabbay haddaad soo fuushanaan kari maysid environmentka o dhan buu xumaynaya qiiqa la leeyahay hala joojiyo waxaa ka mid a qiiqa sigaarka diintaaduu xumaynaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaaba xalaalah laakiin waxoogaa ur yaroo la naca leh ayuu yidhi haddaad soo cuntaan jamaca ha imanina basashu waa xalaal soo maaha iyo toonta iyo waxaa la yidhi haddaad soo cunto jamaca ha imanin ka war haddaad sigaar soo buufiso qurhmunka la timaadid intaad hortiisa ku bakhtiso aad soo gashid wuxuu dilayaa sigaarku wuxuu sababaa albuxa almusmina bay dhahaan qufaca joogtada ah wuxuu sababaa bay yidhaahdeen in qofka urtiisa iyo dhadhankiisuba ay yaraadaan oo uu qiiqa kani bedelo wuxuu sababaa bay yidhaahdaan strokeskan maskaxda ku dhaca dadkan la leeyahy inuu dhaco stroke baa ku dhacay waa sabab ka mida waxyaabaha sababa wuxuu kaloo sababaa jaltaadka qalbiga ku dhaca wadna istaagga xididada xidhma wuxuu sababaa tiibayda sambabka ku dhacda wuxuu sababaa bay yidhaahdeen gabowga qofka sigaariyacabkii bay leeyihiin 10 sannadood buu da'diisa caadigaa ka weynyi yacni wejigiisa iyo jacaabiidda ku yaalla iyo jidhkiisa markaad u eegto iyo da'da uu jiro marka laysu eego yacni 50 jirka sigaariyacabkii 60 jir buu la muuqaalayaa sigaar cabbin 10 years cimrigaaga ka mid ah waayo unugyada dib u nooleeya jidhka renewalka ku sameeyu wax yeelaa saa daraaddeed shaykhuukha mubakira bay yidhaahdaan gabow degdegaa ku dhaca oo qofka kale uu ka horgaboobaa maxaa keena in dadku sigaarka cabbo inta ugu badan dacfi iimaaniya isku dayasho inta badan dadku markuu dhallinyaradayay buu bilaabaa 12 jir mid kaloo cabbayuun buu arkaa wuxuu idhaha balkeen waxani wuxuu dhadhamaya eegne abacashuu buufiya hadhowna wuu u baahdaa diintoo dadka ku yar jahligoo ku badan oo waxaan uu ku socdo inuu sun yahay kansar inuu cabbayo aanu ogayn asbaabo badan baa keena waxyaabaha kan marka ayuha alaxiba darsiga kan iyaga waxaan ka soo naqliyaan badiye nusuusta sharciga amaan badinin waayo in badan baa wadaadadoynaa war waa xaaraan war waa kan waa iska wadaaddo kalea yidhi waa shubha iyo waa karaahiye sheekh hebel baa yidhi waxaa dunidu intaanay cilmiga bahalkan ogaan waa la muransanaa saynis yahanaduna waa muransanaayeen wadaadaduna waa muransanaayeen
waayo waxa kani wuxuu geystaan la garanayn intuu leegiyo maanta sacidi ma muransana ninka murma maanta waa nin aqoon darra haysa bahalkaanu garanaynin sigaar iyo shiishad iyo kuwa maanu akhrinin waxa dunidu ka sheegtay laga qoray cilmiga la ayaanu arag saa daradeed buu muranka la soo taagay inuu yiraahdo waa karaahiye iyo waa kan iyo baabka inuu galo yani waa aqoon darro si haddaba qofkii cabayana cambayina isagoo og inuu isu sumaynayo ku dhinto kii iska daynayana iska daayay inuu waxaynu u sharaxnay waxyaabahay ka qoreen iyagu iyo ka yidhaahdeen ilaahayna wuxuu ina faray inayna nafteenna halaagin marnaba طيباتنا إنينو عنه خبائست يا وحا حنا إنينو اسكغتغنو صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله الشيخ سؤالها قار قبله أما كل توح صادر ما كان قبر كل تقار كود قبرها صادري موبايلكي هورو شلي باستعمالين marka su'aasha horeysa sheekh daawooyinka la isku cadeeyo oo dumarka isku cadeeyaan inkastoo mawduucan aysan calaaqad toos la lahayn laakiin kulleetaba waa ka agdhowdah marka maxaa darara oo ku jira su'aashaas lagu weydiinaya waxyaabahan la isku cadeynaya waa chemical aad jirkaaga ku bedelayso idan waxay leeyihiin waa sumuhu ka mid waliba wadannadana aan la baadhin waxa ku jira wadannada qaarkood wasaaraadkooda sixada xoog u baadha wadannadan qaarkood aan waxba la baadhin mararka qaarkood baa maadooyin radioactive ah mercury baa ku jirta xismariyaan qaar ka mid ah idan horta su'aasha koowaad waxay tahay qofka bini aadamka ah sidii alla uu abuuray inuu ku qanco weeyaan marka koowaad sanacada ilaahay waa wada qurux badanta sanacada alle wax fool xumi kuma jiraan waxaan ahayd qofka muslimkii inuu bima qasama allahu lah wixii alla uu gooyey inuu ku qanacsanaado walidalik inta aan ka akhriyay ee ku saabsiisan adawaatu tajmiilkaasi la isku cadeeyo waa inay sun yihiin aanay caafimaadkaagana u fiicnayn walidalik jirkaaga ha sumaynin muddo yar markaad isticmaasho waxaa dhacaysa diirka madow baa kaa tegaya caddaantaad xataa doonaysa yeelan maysidee waad gubanaysaa berber madow baad yeelanaysaa marka dambe xad baad gaadhaysaa dabku aanad u dhowaan karin kijada ma geli kartid oo hadhow wax ma karin kartid xad baad gaadhaysaa marka dambe duqsiga iyo xasharaadku ay ku cunaan idan waad sii soconaysaa ilaa aad baaba'do hamoodin labada wiiga hore cadcadaanka waxa aad u muuqatay inay sidan ku joogayso wuu isbedelayaa jirku totally marka waxaan kula talinayaa inaydan ismarinin wallahu a'lam sheekh su'aasha labaad qaadka waxyaalaha ugu badan oo runtii Kenya marka la joogo dadka runtii baabi'iyay caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa qaadka marka arrinkaas inaad dul istaagtid baan jeclaan lahayn su'aalaha la soo diray ka mid yihiin barakallahu fiik cidii balballaadhin ka rabta waxaan odhan lahaa baa laga yaabaa netka inay ka helaysaan laba cajaladood aan qaad kaga warramayo kimikali wuxuu ka samaysan yahay taariikhdiisa wuxuu ahaan jiray waddaduu soo maray soomaalida iyo qaadku halkuu ka soo galay siday u cuni jirtay hadda siduu marayo qaadku marka la soo duuduubo yurubiyanku dhowaan bay baxdigiisa bilaabeen beri hore 5 nin oo Scandinavian ay soo direen shantiina meelaha intay marmarayaan kana calaysay waa qolada scientific name-ka uu hadda leeyahay uu bixisay laakiin markaan soo duuduubno qaadku hadda United Nations-ka wuxuu ka yahay drugsku ka mid yahay
maandooriyeyaashu ku jira waa mukhadar dowladaha reer galbeedna inta ugu badan mukhadaraadku ugu jira qoloba level uu ka taagan yahay waxa ka mid yahay qaadku maadooyinka ku jira caffeine iyo cathinone baa ka mid ah caffeine-ku waa qaatiin waa qaat bay u jeedaan caffeine qaatiin weeyaan iyo cathinone maadada la yidhaahdo waa maadad nerve systemka qofka khalkhal gelisa dabeetana jidhkaaga dagaal aanu ku jirin bay gelisaa wax badan bay markaa sababtaa caffeintu waa khatarta cathinontu waa khatarta ta ka hooseysa xataa caffeinta ahi waxay ka mid tahay daragan laga baadho dadka sportiga cayaara adoobika laga baadho dadkan ordada haddii caffeine lagaa helo waa mulqi cayaartaadoo dhammi waa drug baad soo cabtay weeyaan cathinone-kana kaba kaalay uu ka sii sarreeya waxa uu sababaa waxyaabo tiro badan leh mawaad kalena waa ku jirta maalan suntan hargaa lagu magdiyaa qaadka ku jirta oo waxaan afka u caddaaday iyo ciridka iyo meelaha kale waxay u caddaadaan waxaa ku jira sunta haragga lagu magdiyo haragga markay magdinayaan sumahay ku shubaan sun ka mid a ku jirta waxaa ku jira dee wuxuu u baahan yahay malaa wakhti badan in la siiyo haddii la rabo in laga hadlo calaa kulli xaal dee waxaa idinkaga filanayaan idhi qaadkii yurub la geyn jirayna soomaali 467 milyan oo gini bay ku isticmaali jirtay somaliland oo qurana 520 milyan baa lagaga isticmaalaa koonfuro ka ballaadhana intaad u malaynaysaa in lagu isticmaalo markaas dhaqaala dareer intee leeg buu inugu hayaa shaki kuma jiro inaanu wax badan sigaarka ka sokaynin inuu la nooc yahayo shaki kuma jiro waa jirtaa culammadeenii hore inay qaar cuni jireen waayo lama ogeyn wax ku jira geed caadiya oo khudaarta ka mid ay moodayeen markii la cunayay annagu dee waqooyiga aanu joogno masaajidii hore qadiimka ahayd dhammaanteed masaajid waliba qol lagu qayilaa buu leeyahay masaajidii hore qadiimka ahayd waxyaabaa laga barakaystana uu ku jiray laakiin markii la ogaaday suntuu yahay waa laga tegay culammadii way iska daysay iyo dadkii cuni jiray dhakhaatiirtuna aad bay uga digayaan bugaag badan baa laga qoray cala alaqal waxaa akhridaan buug yaroo nin soomaaliyeed qoray oo la yidhaha hadimooyinka qaadka maxamed cabdi daawud hadimooyinka qaadka wuxuu ka warramayaa bahalka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo baadhitaanadii cilmiga ahaa ee lagu sameeyey iyo waxyaabuu jidhka ku sababo xanuunada uu keeno calaa kulli xaal waa sun isaguna ha la iska daayo wallahu aclam sheekh xashiishka la farsameeyey oo sidii sigaarkoo kale wax yar loo duubay haddaan la badsan ka waran waa garateen bay ilatay waxa uu qosasheen xashu waa cannibal de waa marijuana waa mukhadar caan oo dee dunidoo dhan laga yaqaano inuu mukhadar yahay dunidoo dhan baa og marka dee mukhadaraadku ma bannaana diinta islaamiga wallahu aclam are you allowed to drink alcohol wuxuu leeyahay qofka haddii operation lagu samaynayo ama dhibaato kala qabsato in mararka qaarkood ma garanaysaa uu wax adiga alcohol inuu qaato cabitaan buu ka cabiray drink alcohol maxaa diinta ka qabtaa khamri in la cabo khamrigu waa sun waxay dhahaan dhakhaatiirtu waa sunta qura ee masmuuxa dunida ee la iibiyo ee dowladu iibiyaan waana sun maadaama uu sun yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waa bukaane caafimaad ma keeno markuu nabigu yidhi waa xaaraan ayaa waxay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisa uu dadka bukaannu ku daweynaa qaar baa yidhi wuxuu yidhi war isagaa bukaane daawo maaha
qolo kala u timo waxay dhahay meel qabooba baanu deganahayo waa isku yara kulaylina ka taga buu ku yidhi wax kasta oo sabab oo ay sheegeen wuu diiday nebigu kamaanu sameeyay wax kasta oo sabab oo ay sheegeen wuu diiday marka alcohol haddaad operation leedahayna ku caafimaadi maysid waa un dhib kale aad sii siyaadsanayso alcoholku dee waa qur-aanka uu ku cadiyey xaaraantinimadiisu isagoo ijtihaad wadaad maaha iyo wax loo baadhbaadhayo ma dhib baa keenaya mise ma keenayo binasi kitaab illaahi buu mamnuuc ku yahay saa daraaddeed alcohol sinaba uma bannaana wallahu aclam bismillaah sheekh dadka sigaarka caba ama shiishada caba in la liido oo lagula hadlo kalimaad lagu liidayo diinta maxay ka qabtaa ibn aadamka dee lama liiday waxba loo sheegaa liidistu ila waa ismaagisa soo istifaaci maayo haddaad liido inaynu wax isu sheegno oo iswaanino oo qofka wanaag aad ugu yeedhaba meesha taale in la liidaa meesha ma taalo wallahu aclam sheekh ka waran tubaakada soomaalida ay cunto macnaha waxay u jeedaan cuntaan tubaaka lama cune tubaakada halkaa la geliyo oo soomaalida ay isticmaalaan oo bishinta iyo ilkaha dhexdooda la geliyo ka warran bay ku leeyihin sheekh tee markaan bilaabaya waxaan kuu sheegay noociyaadka tubaakada loo cuno mid afka la geliyo mid sanka la geliyo mid qiiq laga dhigtoo la cabo wuxuuba oo tubaakow waxbaa soo kala reebi wuxuubana xanuunada waa keenaa si kastoo aad tubaako u cabtaa waa poison wallahu aclam dad badanoo waxaa jira runtii in loo duceeyo ama dhibkan daraagiska laga maaragtay ayaa haysta ama maaragtay shiishad ama xashiish dad baa le marka dadkaas markii jalsada la dhammaynaya ha loo duceeyo insha allahu tacala waa yeeli doonaa kaloon sheekha ka codsanayna isagaa musaafira dadkaa ducada codsanaya oo xanuunsan ama dadkoodiibaa xanuunsan ama dad baa soo faray oo yidhi meeshaas shuyuukhda ay joogaan hana looga soo duceeyo bal ducaa inuu u duceeyo insha allahu tacala casa allahu inuu ilahi subxana wa taala ka aqbalo bismi illah alxamdu lilah ilaahay inta bugtaha caafimaadiyo caafimaad khayr qaba ha siiyo inta dhibtu haysatana dhibta ha ka qaado dembigeennana alla ha dhaafo dembigii waalidkeenna alla ha dhaafo wixii mashaakil aynu ka cabanayna ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga kor qaado wixii wanaagaan rajaynayna khayra allah inoo xaqiijiyo sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam